سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوضيال كسو دواضا برنامج كني عيارها وانكو قادا ديجي دونو خدباء دوحي سبضا waxaana ka qayb noqon doona muxuu ka yiri Ronaldo goolkii cajiibka ahaa uu ka dhaliyay kooxda Sampdoria maxaa ka soo baxay xaaladda dhaawac ee Virgil van Dijk miyuu diyaar u yahay kulanka finaalka koobka kooxaha adduunka ee Sabtida ku qabsoomi doona dalka Qatar. Dimitar Berbatov oo ka aragti dhibtay imaanshaha Haaland ee kooxda Manchester United talo ma soo dhaweeyay masawaaba diiday. Mohamed Salah wuxuu la heer yahay Lionel Messi. Arsene Wenger oo dhinac kasta tabaqiray qaab ciyaareedka wacdaraha wata ee Salah inay ka dhigan tahay in uu yahay mid ka mid ah ciyaartooyda ugu wanaagsan caalamkan. Mikel Arteta haddii uu qabto Arsenal waxa waajib ku noqon doonta in uu iibiyo Pierre-Emerick Aubameyang. maxay tahay sirta ka dambaysa iibinta xidigan? sidoo kale barnaamijkeena ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. waa qalad weyn oo laga galay kooxda Liverpool oo noqotay tartanka Champions League in mid ka mid ah ciyaartooydooda ay ku guuleysan waayaan abaalmarinta Ballon d'Or. kuma mudna Yahya Toure oo si cad u tilmaamay kana soo horjeestay in abaalmarintaasi la siiyo Lionel Messi. ugu horeyn laagsar muuqaalkan subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamadda gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee muuqaaladeena. mahadsanid. halkani waa Tulito Channel. kooxda Liverpool ayaa si weyn kaga walwalsan xaaladda difaacooda Virgil van Dijk ka hor finaalka koobka kooxaha adduunka ee Sabtidatan ay ciyaari doonaan. difaaca ugu wanaagsan qaarada Yurub waqti xadirka kan reer Holland ayaana shaqo yar ka sameeyay qolka jimicsiga welina si buuxda ugama qayb qaadan tababarka kooxda, taasi oo walwal ku abuuraysa Jurgen Klopp in uu qayb ka noqon karo kulanka Flamengo. xidigani ayaana tababarka buuxa ka soo muuqan tan iyo markii kooxda ay gaartay cariga Doha, waxaana hadda Qatar ugu jira in uu seego kulanka weyn ee Liverpool ay doonaysaba in ay hanato qarnigani koobka kooxaha adduunka. xasuustana marka dib loo celiyo kooxda Reds ee ka dhisan gobolka Merseyside ayaa hal mar gaartay koobka kooxaha adduunka finaalkiisa, waana sanadkii 2005 oo si mucjiso leh ay kooxda AC Milan kaga qaadeen tartanka Champions League, laakiin waxay khasaare kala kulmeen kooxda reer Brazil ee São Paulo. mar kalena Jurgen Klopp ayaa ku qasbanaan doona in difaaca dhexe uu ka ciyaarsiiyo Jordan Henderson. xidiga reer England ayaana diyaar u ah in uu qaabilo haddii uu codsi kaga yimaado macallimka Reds. kulankii ugu dambeeyay oo ay ciyaareen koobka kooxaha adduunka ayuuna si wacan kaga soo baxay kaalintiisii shaqo, waxaana uu yiri waxay ahayd wax kale. waxa igu hareereysnaa ciyaartooy cajiib ah kuwaasi oo i caawinayay. marka ay ciyaartooydaasi hareerahaaga joogaan in yar ayay ku noqonaysaa wax sahlan. waxay ahayd wax ka duwan wax waliba oo lay isticmaalay. dhinac kasteetaba Jordan Henderson ayaa isagana si cad u tilmaamay in uu qaabili doono haddii Jurgen Klopp uu go'aansado in uu ka ciyaarsiiyo qalbi difaaca kooxda Liverpool oona u baahan in ay ku guuleysato koobka kooxaha adduunka. imtixaan adag ayaana hor yaalla oo maxaa yeelay waatii 2005 ay ka afduubatay koobka kooxaha adduunka kooxda São Paulo. haatanna mar kale ayay wajihi doontaa iqaab adag oo noqonaysa koox kale oo reer Brazil ah waana Flamengo, iyadoo weliba ciyaartooy muhiim ah ay ciyaarta tan dhaawac ku seegi doonaan. ciyaartooyda iyo maamulka kooxda Manchester Unitedna waqti xadirka kan iyo wixii ka dambeeya waxay aamineen in laacibkooda Paul Pogba mar dambe uusan xiran doonin maaliyadda kooxda ku ciyaarta istaadiyaha Old Trafford. Paul Pogba ayaana si weyn loola xiriirinayay in kooxda uu ka tagi karo tan iyo xagaagii,
la soo dhaafay saxiixa ugu qaalisan ee kooxda lagu naanayso shiyaadiinta cascas kaasi oo ay ka bixiyeen adduun lacageed gaaraya 89 milyan oo pound ayaa waqti xaadirka kan waxaa taagan qorshayaal baaxad weyn oo ay ku doonayso kooxda Real Madrid si lamida kooxda Pianganeri suuqa Janawarina maamulka Manchester United iyo ciyaartooydaba waxaa ka dhaadhacsan aragti ah in Pogba uu ka tagi doono Old Trafford inkastoo macalin Ole Gunnar Solskjaer uu ku adkaysanayo in dib ugu soo laaban doono kooxda Manchester United haddana laacibkani ayaa mar kale xanuun u haleelay taasi oo kasbaysa in ilaa iyo January Manchester United uusan u ciyaari karin taasina waxay kasabtay in maamulka iyo ciyaartooyda kooxda Manchester United ay ka dhacday aragtida ah in Pogba mar dambe uusan xiran doonin maaliyadda kooxda Manchester United isla markaana uu aadi doono suuqa January istaadiyaha Santiago Bernabeu oo maxaa yeelay Madrid ayaa la fahansan yahay in si weyn ay u doonayso laacibkani mar kalena ay doonayso inay ka bixiso qiimo kale oo aad wali u ah laacibkii hore ee kooxda Manchester City Yaya Toure ayaa isagana waxa uu tilmaamay xidiga uu arko inuu yahay midka ugu fiican qaaradda Afrika isla markaana u qalmay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or Yaya Toure ayaana aaminsan in laacibka reer Senegal ee Sadio Mane uu yahay xidigii ugu fiicnaa qaaradda Afrika isla markaana uu u qalmay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or 2019 Yaya Toure ayaana waxa uu yiri Afrika dhaxdeeda kuma aragno ciyaariyaan ka fiican isaga miyaad aragtay waxa uu u qabtay xilli ciyaareedkii hore iyo tirada goolasha uu u dhaliyay iyo guulaha uu la gaaray Liverpool si aan u noqono kuwa daacad ah uma qalmo kaliya inuu ku guuleysto abaalmarintan xidiga ugu fiican Afrika sanadkan ee ugu horeyntii wuxuu u qalmay inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or oo la guddoonsiiyay Messi oo jooga hol ku yaala magaalada Paris taasina wuxuu ku tilmaamay inay ahayd arrin xadgudub ah waxaana intaasi uu ku sii daray aniga ahaan waa wax laga xishoodo in Liverpool ay ku guuleysato Champions League haddana xidigaheeda aysan ku guuleysan abaalmarinta Ballon d'Or ee 2019 waxaan u malaynayaa in mararka qaar aad aragto in dadka Afrika aysan ahayn kuwa muujinaya isku duubnaan ka dhaxaysa taasina waa dhibaatada jirta waqti xaadirka kan ayuu cod dheer ku yiri Yaya Toure oo dhinac kasteetaba u sababeeyay in Sadio Mane uusan ku guuleysan abaalmarinta Ballon d'Or sababteeda ay tahay isku duubni la'aanta ka jirto qaaradda Afrika isla markaana ay tahay wax laga xishoodo Liverpool oo ku guuleysatay Champions League xilli ciyaareedkii hore in haddana la guddoonsiin waayo mid ka mid ah ciyaartooydooda abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan dunida ee Ballon d'Or taasi beddelkeedana kaliya Virgil van Dijk ayaa madaxa loo saaray in uu noqday midka ugu wacan uguna wanaagsan qaaradda Yurub weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa xaqiijiyay isagana in wali uu aamin la yahay goolkii cajiibka ahaa uu ka dhaliyay naadiga Sampdoria kulan ka tirsan horyaalka Serie A Talyaaniga Ronaldo ayaana dhaliyay gool cajiib ah kadib markii uu u booday si la yaab leh kulan Juventus uu ku hogaamiyay guul 2 gool iyo gool ah ay ka gaadhay Sampdoria Cristiano ayaana hawada sare u booday 2.56 mitir waxaana madax xoogan uu ka dhaliyay kooxda Sampdoria waxaana arintaasi ay la yaab ku noqotay dadkii daawanayay ciyaarta iyo kuwii gabi ahaanba ka fiirsanayay iyagana shaashadaha caalamka oo maxaa yeelay wuxuu u booday sidii faras baxdow oo kale Ronaldo oo waraysi siinayayna Sky Sport Italy waxa la hordhigay Ronaldo waxaad booday 2.56 mitir Ronaldo ayaa ku jawaabay ma ogi arintaasi weeraryahanka kooxda Juventus wuxuu hadalkiisa intaasi ku sii daray wuxuu ahaa gool aad cajiib u ah waan ku farxay in kooxdayda aan ku caawiyo in ay gacanta ku dhigto 3 dhibcood waxaan natiijo fiican ka gaarnay Sampdoria oo soo bandhigtay kulan fiican waxaan qabay dhibaatooyin dhanka jilibka ah bil ka hor laakiin haatan waan ka gudbay waxaan dareemayaa inaan aad u wanaagsanahay wax waliba ee aan doonayo
in aan samaynayo ayaa ah in aan ka caawinayo Juventus in ay ku guulaysato koobab badan ayuuna tilmaamay Ronaldo oo dhinac kastaba cadeeyay in waqti xadirka kan iyo wixii ka dambeeyaba uu soo jeestay in Juventus uu la gaaro guulo waaweyn. Mikel Arteta dhankiisana wuxuu ku qasbanaan doonaa in uu iibiyo weeraryahanka orodka dheer ee Pierre-Emerick Aubameyang haddii uu noqdo macallimka cusub ee Arsenal si uu u helo lacag ku filan uu ku galo suuqa sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya cariga Ingiriiska. Wargeyska The Independent ayaa dhankiisana wuxuu cadeeyay in Arsenal ay ku jirto xaalad daciifnimo oo dhanka dhaqaalaha ah halka xaalka ay ku sii xumayn doonto haddii ay u soo bixi wayso xilli ciyaareedkan tartanka Champions League ama Europa League. naadiga Gunners ayaana ku jirta kaalinta tobanaad ee kala sareynta waxaana 22 dhibcood ay ka heshay 17 kulan oo ay ciyaartay waxaana ay way doontaa lacag dhaqaale oo ku filan haddii ugu yaraan ay u soo bixi waayaan xilli ciyaareedka dambe tartanka Europa League. sababtaasi darteed ayuuna Mikel Arteta ugu qasbanaan doonaa in gabi ahaanba uu iibiyo mid ka mid ah xidigaha ugu muhiimsan kooxda waana Pierre-Emerick Aubameyang si ay u helaan lacag ay ku galaan suuqa January ama xagayga soo aadan. xidiga reer Gabon ayaana Arsenal kula jira heshiis gaaraya xagayga 2021 waxaana ilaa iyo haatan uu diidan yahay in qalika uu ku duugo heshiis cusub uu kooxda kula sii midoobayo taasi oo la micno ah in Arsenal ay ku qasban tahay in gabi ahaanba suuqa January xidigani ay islaafiso si ay u soo cishato qayb ka mid ah lacagihii ay kula soo wareegeen waqtigii uu joogay kooxda Borussia Dortmund waxaana babaxsad uu u yahay kooxda Real Madrid oo u baahan inay hesho weeraryahan orodheer sida Aubameyang oo kale. tababarihii hore ee kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa xidiga Liverpool ee Mohamed Salah isagana wuxuu la barbar dhigay mucjisada reer Argentina iyo kooxda Barcelona ee Lionel Andres Leo Messi. Salah ayaana qanciyay Wenger kulankii Arbacada ee semifinalka Club World Cup oo Liverpool ay ka badisay kooxda Monterrey iyagoona iska xaadiriyay finaalka tartankaasi. xidigani ayaana caawin cajiib ah sameeyay ka gadaal markii Benoni dhaafay ugu dhax tuuray Naby Keita kaasi oo xawaareeyay ugu dambeyntiina goolka dhex dhigay waxaana uu noqday dhaliyaha 13 gool iyo caawiyaha 7 gool 23 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan kooxda ka dhisan gobolka Mariseedka tartamada oo dhan. Wenger ayaana aaminsan in xidigani uu leeyahay hibad uu Benoni ku ala abuuri karo sidoo kale farsamo ilaa iyo goolalin taasi darteedna waxa ay sababtay in uu la heer dhigay laacibka reer Argentina ee Lionel Messi. Wenger ayaana waxa uu yiri waxaan ku jeclahay kacdoonkiisa sababtoo ah kulankii Monterrey wuxuu lahaa taabashada kubad sameeyaha wuxuu fursad cajiib ah uu ku abuuray diilinta ganaaxa agteeda waxa uu ahaa mid cajiib ah waxa uu la mid yahay Lionel Messi waa xidig dhalin kara sidoo kalena caawiya noqon kara waa xidig dhammaystiran waana sababta aan dhamaanteen u jeclanay ayuu yiri macallimkii hore ee Arsenal oo haatan door falanqeeyanimo ugu shaqeeya TV-ga PIN Sports oo dhinac kasteetaba mucjisadii reer Masar ee Mohamed Salah ku tilmaamay inuu yahay nin leh hibal la mid midda Lionel Messi waxaana uu ku qarabtaa lugta bidix oo sidoo doono Benoniga uu ugu yeelo dadka qaarna waxay isweydiiyaan in Mohamed Salah lugtiisa ay ku xiran tahay magnad raasanaya Benoniga oo maxaa yeelay waxaba yaab leh sida uu ula xarakoonayo Benoniga. ugu dambeyntiina weeraryahankii hore ee reer Bulgaria iyo kooxda Manchester United Dimitar Berbatov ayaa ka aragti dhiibtay suurtagalnimada Erling Haaland uu ku iman karo garoonka Old Trafford. Dimitar Berbatov oo kamid ahaa weeraryahanadii ugu fiicnaa ee soo maray kooxda Manchester United ayaana si cad u xaqiijiyay in siyaadinta casas waqti xaadirka kan aysan u baahnayn Haaland maadaama weerarka United ka uu yahay mid xoogan. wargeyska Daily Mail oo soo xigtay waraysi uu bixiyayna Dimitar Berbatov waxa uu ku yiri xaqiiqdii weerarka ay haysato Manchester United waa mid xoogan Erling Haalandina uma baahno
waxaan qabaa haddii uu yimaado inuu sababi doono saamayn aan looga baahnayn xilligan kooxda Manchester United. aniga ahaan xidigaha Rashford, Martial, Daniel James iyo Greenwood waa ciyaartoy aad u fiican, laakiin su'aali waxay ka taagan tahay haddii uu dhaawacmo mid ama labo isla markaana ciyaaryahan kale aadan ku haysan kursiga kaydka, taasi waxay keeni doontaa xaalad jahwareer leh. halyaygii hore ee United-ka Dimitar Berbatov ayaa marna u dayriyay Haaland marna soo dhaweeyay oo maxaa yeelay mararka qaar United-ka ayaa wajahda xaalado dhaawac oo aad u xanuun badan. wargeysyada Ingiriiska ayaana muujinaya waqti xaadirka kan in Manchester United ay ku dhowdahay in ay la soo wareegto goolaliyaha cajiibka ah ee kooxda Salzburg kadib markii uu dhaliyay 28 gool 22 kulan uu ciyaaray xilli ciyaareedkan, waxaana uu noqday ciyaaryahan dhinac kasteetaba ka dhammaystiran. guud ahaan barnaamijkani ciyaaraha uu idila socodsiinayay anigoo ah Maxamed Cabdirasaaq Tolman. saaxiibayaal wanaga inta aan ku kulmi doono barnaamij la mid ah.